رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري. And to the Ghanaians, it was nationalism that brought freedom to the people of Uganda and Tanganyika and Sudan and Somaliland. السلام عليكم ورحمة الله. sidee Somaliland ay u heli kartaa aqoonsi? sidee baysa Soomaaliya ay u heli kartaa nabad iyo amni? labadan hadaf waa kuwo ku kala weyn, xaqiijintoodu laba shacab iyo laba wadan oo midna la aqoonsan yahay midna aan la aqoonsanayn. waxaanan mawduuceen idin kula wadaagi doonaa tallaabooyin haddii ay qaado Somaliland ay aqoonsi helayso iyo tallaabooyin haddii ay qaado Soomaaliya ay nabad helayso. waxaanan tilmaami doonaa sidoo kale waxa kaga xidhan Somaliland inay hesho aqoonsi Soomaaliya iyo waxay ka tari karto nabadda iyo amniga Soomaaliya. haddaba mawduuceenan waxaynu ka dhigan doonaa laba qaybood. qaybta koobaad waxaynu ku eegi doonaa sidee Somaliland ay ku heli kartaa aqoonsi. haddaba hore aynu ugu socono mawduuceena. iyadoo Somaliland ay ka qaadatay xorriyadeeda boqortooyada Ingiriiska 1966 June ayaa waxa isla sanadkaasi la midooday dowladda Soomaaliya. muddo ka bacdi 1991 ayay ku dhawaaqday inay madax banaanideedii kala soo noqotay Soomaaliya inteeda kale. haddaba muddo ku siman 28 sanadood ayay ku soo caanamashay Somaliland nabad iyo amni iyo horumar iyo dowlad ay dhisatay. su'aasha ah haddaba sidee Somaliland ay aqoonsi u heshaa? weli jawaab uma helin Somaliland oo ah in loo aqoonsado dowlad madax banaan. haddaba maanta mawduuceenan waxaan idin kula wadaagi doonaa 5 tallaabo oo kamid ah kuwa haddii qaado Somaliland ay aqoonsi helayso. qodobka koobaad waxa weeyaan dardargelinta shaqada wasaaradda arrimaha dibadda. in la xoojiyo shaqada wasaaradda arrimaha dibadda si loo yeesho xiriir xooggan oo diblomaasiyadeed kaasoo sababi kara in la helo saaxiibo waaweyn oo ka qayb qaadan kara aqoonsiga Somaliland dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba. arrintan oo lagu gaari karo in wasaaradda arrimaha dibadda loo dhiibo diblomaasiyiin aqoon-yahan ah kuwaas oo dunida u sheegi kara qadiyadda Somaliland una sharxi kara Somaliland lehna aqoontii iyo waay aragnimadii ay ku kasban lahaayeen saaxiibo isla markaana loo qorsheeyo dhaqaale ku filan wasaaradda arrimaha dibadda oo lagu bixiyo dadaal iyo juhdi ka badan intan maanta lagu bixiyo. qodobka labaad in xiriir lala yeesho wadamada awoodda badan dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba si loo helo taageeradooda. waa xiriir lala yeesho wadamada awoodda badan hadday tahay mid ganacsi iyo mid siyaasadeedba lagana dhaadhiciyo qadiyadda Somaliland iyo faa'iidada ugu jirta guud ahaan caalamka nabadiisa iyo geeska Afrikaba iyo in haddii lala rabo Soomaali wanaag la taageero xasiloonida iyo nabadda ay haysato Somaliland oo gooni uga istaagtay Soomaaliya inteeda kale. Soomaaliya oo ku caana inay tahay dowladda ugu musuqmaasuqa badan la caalamka, ugu nabadgelyada xun, ugu waxbarashada hooseysa, ubadkeeda iyo dhalaankeeduna ay gaajo u dhintaan, dadkeeduna ay u kala carreen intay u suura gashay caalamka guud ahaan intiisa kale ayna ka jiraan kooxo argagixiso deyntii caalamka ka qaadatayna aan iska bixin karin oo aan iska bixin doonaysan in laga caafiyo. ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan uga baryaynaa nabad iyo amni buuxaynu siiye ayaan uga baryaynaa. haddana doonaysa in deyntaasi laga caafiyo waxay ku adkaysanaysaa Somaliland inay ka mid ahaato Soomaaliya inteeda kale. haddaba waxa muhiim ah in Somaliland laga dhaadhiciyo saaxiibada caalamka iyo wadamada caalamkaba inay Somaliland oo maanta caalamku inuu yaqaano inay Soomaaliya inteeda kale ka mid tahay in la taageero horumarka iyo nabadda ku siman muddo dhan 28 sanadood. qodobka saddexaad doorashooyinka oo lagu qabto waqtigooda. waan garan karaa shakhsi ahaan horta dhaqaalaha ku bixi kara doorashooyinka oo aynu wada ogsoonahay dhamaanteen oo lacag aad u fara badan baa ku baxda shacabka wax lagu qaban lahaa. faa'iidana uma aha doorashooyinkan xiga Somaliland oo ah dal urdina oo dhaqaalaheedu soo korayo guud ahaan geeska Afrikaba. laakiin saadaba si ay hadafkeeda u gaadho Somaliland waa in doorashooyinka waqtigeeda ay ku qabataa. waayo waxa kaliya indhaha caalamka ay ku soo jiidan kartaa waa doorashooyinka waqtigooda lagu qabto. kala golaha guurtida waxay fadhiyeen waxa la doortay 1997 waxaana kaga ekay 2003 welina way joogan. baarlamaanka waxa la doortay 2005 waxay kaga ekay 2010 welina way joogan. waana muddo dhaaf saayida sidaas awgeed waa in doorashada waqtigeeda lagu qabtaa.
oo muddo dhaafkana la iska daaya si arrinkaas haddaba xal loogu helo waa in waqtiga la kordhiyaa oo 5 sano waqti lagu daraa hadday tahay madaxtooyada baarlamaanka golaha kurtida oo 8 sano iyo 7 sano laga dhigaa maadaama dhaqaale badan ku baxayo oo hadii la ilaahdo waxa aan lagu sameeyay balaqaana wixii lagu sameyn karin la qabsado in kolba waxa imanaysa dubudhac imaado ma garanaysa muddo kordhinay timaado si taas meesha uga baxdo waa in la kordhiyo 7 sano looga dhigaa ama 8 sano looga dhigaa baarlamaanka madaxtooyada golaha guurtida golaha deegaanka intaba muddo kordhin loogu sameeyaa oo dastuurka lagu ansixiyaa nooc kasta hadaba doorasho dastuurku u dhigayo si ay u noqoto mid aan dib u dhicin waa in waqtiga horta wax lagu daraa midda koobaad lana ilaaliyaa waqtiga marka la go'aansaday ee dastuurka la gashaday shuruucda wadanka laga dhigtay qodobka afraad siyaadkeynta nabadgelyada Somaliland halkay maanta joogto waxay ku soo gaadhay nabad iyo amni waxaana hadafkeeda ku gaaraysaa waa nabad waa afkarad ka soo horjeeda dagaalka iyo kharbadaada ka dhaxdhaca qoomiyadaha amba tabaqada bulshada amba dawladaha tartamaya nabada ayaa waxay la socdo horumar iyo kobac dhinac walba dagaalka iyo dhibta ayaa kulida mar walba xasiloonida ka dhalata nabada kaasoo aan la jaan qaadi karin horumarka iyo ilbaxnimada nabada wanaageeda qaalinimadeeda iyo muhuraanimadeeda aad ayay muhiim ugu tahay bulshada Soomaaliland guud ahaan ma garan karo maanta qof reer Soomaaliland oo 28 sano ka weyn oo aan garan karin balaayada iyo dagaalka iyo dhibaatooyinka ay leeyihiin qof aan garan karin ma jiro hadaba nabada iyo ammaanka ayaa aasaas la muhuraan u ah shardina oo horumarka iyo kobaca iyo ilbaxnimada oo dhan Soomaalida oo hadaba dad nabada iyo dagaalka labadaba yaqaan ayaan la soo koobi karin murtida ay ka sameeyeen nabada waxaana kamid ah maamaayada Soomaalida nabad laani waa nolol la'aan nabad baa naas la nooga leh nabada ayaa adduunka laga wada og yahay waxay gasho iyo waxay gudo labadaba nolosha la nool yahayna waa nabad iyo naxariis la'aanteedna colaad iyo culujoog weeyaan sidaas awgeed waxa looga baahan yahay xukuumad kasta oo qabsata hoggaanka Somaliland in ay si fiican uga shaqeyso nabadda cid kasta oo caqaladeynaysan gacan bir ah lagu qabto oo meel looga soo wada jeesto mucaarad iyo muxaafidba qodobka shanaad waa sare u qaadida tayada waxbarashada intii ay Somaliland ay ku dhawaaqday inay bilaash tahay waxbarashada dugsiyada hoose dhexe iyo hoose dhexe waxaan horta culayska ay ka qaaday waalidiin badan oo aan awoodin inay iska bixiyaan lacagta bisha haddana waxay taasi barbar socotay inay hoos u dhacdo aqoonta ardayda taasina waxay sababtay inay dugsiyada sare u soo gudbaan arday aan dhisnayn aqoon ahaan iyo tayo ahaanba intii laga rabay taasina maaha mid u wanaagsan mustaqbalka jiilka dambe ee Somaliland sidaas awgeed waa in la tayeeyaa aqoonta macallimiinta wuxuu dhigaysaa ardayda loo kordhiyaa mushaaraadka hadii dhaqaale ahaan la awoodayna waa in laga qaadaa waalidiinta qadar kooban oo lacaga waayo waxa dhaama 8 sanadood oo ah tayo xumo waxbarasho in culays yar uu ku dhaco waalidiinta si ay u soo baxaan arday dhisan mustaqbalkooda dambe u dhisan yahay waxbarashadooda dhisantay oo waalidkooda iyo qarankooda iyo dalkooda anfici kara jaamacaan tiralbeelkana way shuruudo loo dhigaa cidii shuruudaha ka gudubtana way lagu aaminaa inay ardayda wuxuu dhigto oo cilmi aqoon ay barto maanta qofka reer Somaliland hadduu si fiican wax loo baro haddii macal dadka aanu shaqo keenin sida dadka Hindida oo kaleba uu shaqo kali caalamka uu shaqo tagi karaa laakiin haddana qof aqoon la'aan ahayn iska day inuu caalamka u shaqo tagaa shaqooyinkiisiba dad ajaaniba la keenayaa oo boosas qaar baa helin cid bixiso oo aqoonteeda leh hadaba haday ku dadaasho dawladda Somaliland inay ka shaqeyso oo sare u qaado kobaca waxbarashada jiilka dambe taasi waxay u suuro gelinaysaa inay caalamka u noqon karto meel kaalin muhiim ah ugu jirto oo aan culays ku ahayn una baahnayn macaawinooyinka ee isku filan dhaqaale ahaan iyo cudud ahaanba taasina waxay suuro gelinaysaa habar raage inay Somaliland aqoon yeesho oo la macaamisho caalamka intiisa kale qodobka ugu dambeeya waxa weeyaan waxaan isaga ku tilmaamayaa Somaliland waxa kaga xiran Soomaaliya inay hesho aqoonsi horta Soomaaliya midida daabkeeda iyada haysa waxayna suurta gelin kartaa inay maanta iyada iyo shacabkeedu waxay suuro gelin karaan madaxdu waxay ku shaqeynayaan waa rabitaanka shacabka
inay Somaliland iyo Soomaaliya isku noqdaan sida labada Kuuriyo kale amba Hindiya Pakistan cadaawada u dhaxayso kale amba marka ay Soomaaliya cid ay istagaalaan inay Somaliland noqoto meel saldhig military bixisa oo Soomaaliya laga duulo cadaawada inta leeg in shacabka loo socdo maaha shacabku waa dad walaala isku afa isku diina isku dhaqana waa in hadii aanay isku qanacsaneyn oo muddo 28 sanadooda ay doonayeen wadanka intiisa kale inay ka go'aan waa rabitaankooda loo tixgeliyaa si aanay ugu soo hortagelin qaabab kale oo aan ugu marin in rabitaankooda u gaaraan in waa muhiim in ay isku noqdaan sidii maanta isku yihiin Sacuudiga iyo Bahrain iyo Imaaraatiska wadamada xulafada sida awgeed waxa fiican in laga faa'iideysto fursadaha wada hadalada Somaliland iyo Soomaaliya miiskana aan la tagin muqaddis weeye Soomaaliya midnimada Soomaaliya muqaddis weyn aan la tagin ee la fuliyo muraadka Somaliland oo Somaliland loo ogolaado in ay Soomaaliya inteeda kala ka goodo oo ay aqoonsi yeesho wanaagun bay soo kordhinaysa Soomaalida wax dhibaato soo kordhin mayso maanta weyn oo ogsoonahay Djibouti oo Somaliland dhul ahaan ka yar dad ahaan ka yar Soomaaliya waxay tartay waxaynu ogsoonahay in Soomaaliya xukuumadeeda qaar kamida lagu soo dhiso waxaynu ogsoonahay in ciidamo hil walaal ay geysay Somaliland ciidamo jiid walaal ay geen kartaa oo aan u shaqo tagin meesha oo aad u tiro badan oo la dagaalamo kooxaha argagixisada kuwaas oo naafiyay horumarka iyo inay Soomaaliya cagaheeda isku taagto oo ay ka maaranto caalamka intiisa kale marka waxa loo baahan yahay inay Soomaaliya fursad ay maanta hayso ay ka faa'iideysto intaanay Somaliland meel kale aqoonsigaasi ka helin cadaawadaasna shacabka labada dal aanay dhexolin aanay dhexdigmin inay Somaliland oo fududeyso shacab ahaan iyo xukuumad ahaanba qaabkii aqoonsi weeyleed wanaag mooyaane wax xumaan u soo kordhinaysa ma jirto arrinkan ay kala qayb qaadato Djibouti iyo Somaliland iyo Soomaaliya markay iskaashadaan sharafta Soomaalinimada ay dib u soo celinayaan waxay noqon doonaan laba dawladood oo iska kaashada cadawgooda iyo cid walbaba oo ku soo gardaroota sidaas awgeed waxaan ku talin lahaa in Somaliland aqoonsi buuxa la siiyo aad baynu muhiim ugu tahay Soomaaliya hadaba qodobkeena dambe oo ku soo qaadan doono sidee Soomaaliya ay u helaysaa oo nabad iyo amni buuxa intayna kaas ku kulmi doono muuqaalkeenan maanta waxaan idiga tagay meel walba caalamka ka joogtaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونو مقال كينن يا مقال